shirka G7 ayaynu ku jireenaa iyadoo shirka G7 uu ka bilaabmayo dalkan UK maalinta Jimcaha soo socota ayaa waxa magaalada London galabta lagu qabtay shir ay ka qayb galeen madax kala duwan oo ka tirsan dawladda dalkan UK iyo hay'adaha caalamiga oo laga hadlayay sidii gacan dhaqaale loo siin lahaa haweenka qaaradda Afrika. shirkaas oo ay soo qaban qaabisay hay'adda la yiraahdo The Five Foundation ayaa dadka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa madaxa shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Ducaale oo iminkana khadka toos ugu jira isagoo jooga London. Cabdirashiid soo dhawow, bal marka hore waxaad in yar inooga warantaa waxa shirka laga hadlayay iyo waxyaabaha lagu falanqeeyay. Bidaan salaamu calaykum adiga iyo dhammaan dadkeena dhageysanaya. Sidaad u sheegtay shirkani galabta ayuu ka dhacay magaalada London. Iminkadaan kula hadlay weli uu socdaa goobtii shirkan kala hadlaya. Waxa culayska la saaray wuxuu ahaa maadaama toddobada wadan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan leh ay ku shirayaan wadanka UK in shirar la xiriira shirarka la sii qabto oo kan iminka aan ka qayb qaatayna oo ahaa sidii maaragtay wadamada Afrikaanka ama dhaqaalaha Afrika siiba dumarku ay uga faa'iideysan lahaayeen maaragtay isbedelka socda ee wadamada toddobada dal ee adduunka ku shiraya UK-na ay uga qayb qaadan lahaayeen maxay la qaban karaan dhaqaalaha Afrika maxay la qaban karaan dhaqaalaha dumarka la xiriira shirkado badan oo maaragtay adduunka qaar Afrika oo waliba xagga dumarka u badanna way ka qayb qaateen annaguna waan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaadano ama ku marti qaaday. waan gartay Cabdirashiid waad ogtahay haweenka u badan qaaradda Afrika dadka ganacsiga yaryar haysta marka ilaa ma hadday noqoto xaggii banka adduunka hadday noqoto xaggii G7 hadday noqoto IMF weli ma jiraan qorshayaal si gaar ah iyaga loogu bartilmaameedsanayo oo loogu sameynayo dhaqaale haweenkaasi lagu bari taageero. Bidaan saad u sheegtay laba wasiir oo wasiirka arrimaha gudaha ee wadanka Ingiriiska ah gabadha Brit Patel iyo gabadha dhaqaalaha maaragtay ama businesska international ku xil saaran Liz Truss labaduba shirkan maanta galabtaan joogno way ka hadleen waxay aad u culayska u saareen in dawladda UK iyo dawladaha kale ee maaragtay toddobada wadaniba in waxyaalaha hawlaha u yaala ay tahay qodobka aad sheegtay ah sidii dumarka Afrika jooga ama hay'adaha front line-ka waxa loo bixiyay maaragtay halka ugu horeysa ka shaqeynaya ay u heli lahaayeen kaalmo dhaqaale iyo support sidii shirkadaha private-ka ah ee ama Dahabshiil ka mid yihiin ama bangiyada kale ay ka mid yihiin ay uga qayb qaadan lahaayeen saad la socotay anagu Dahabshiilaan waxaanu create gareynay microfinance qayb la yiraahdo dumarka lacagta amaahiya waxa kaloo Dahabshiil bank uu sameeyay maalgelin badan oo xagga dumarka lacagtana uu dareer remittance kala qayb ka mid ah oo badan dumarka runtii hela marka waxyaalaha ay nagu marti qaadeen waxa ka mid ah inaanu la wadaagno aqoontaan u leenahay arrimahaas dhaqaalaha dumarka ama baahidooda ay la xidhiidho waan uga warranay Dahabshiil inuu qayb weyn ka qaatay iminkana uu u diyaar u yahay waxa laalo wixii shaqo lagu abuurayo horumar ka qayb qaadanaya waayo dumarku waa dhaqaalaha adduunka qayb weyn bay ka yihiin waliba xagga Afrika. waan gartay Cabdirashiid waan gartay wad noo sharaxday arrimahaas laakiinse ma jiraan iminka idinku Dahabshiil group oo kale haddaad tihiin idinku kaliya maaha ama bangiyadii kale ama hay'adii kale wax iminka loo qoondeeyay oo maalinkan maanta maaliyada oo la leeyahay haweenkii waa lagu baritaarayaa waliba kuwii Soomaaliyeed ama geeska Afrika ee dhulka Soomaalidu degto ka shaqeeya taas maxaad nooga sheegi karaysaa? runtii bidhaan way jiraan waayo sidaan kuu sheegay qaybo dhan baan u sameeyno oo microfinance ah oo ay lacag ka amahan karaan dumarka Soomaalidu ama meel joogaanba bangiga laftooda qaybo dhan baa jiro maalgelin badan oo dumarka u diyaarinay oo ay dalban karaan oo ay ka qayb qaadan karaan lacagahan dareer laftoodu qaybo badan baa jiro dumarka runtii dhaqaalahooda adeega bacmushtari badan baa jira inta xafladan maanta dhacdo kale waxaan u diyaar garaynaa cajalada ama video ka hadlaya waxyaalaha aanu qabano qaybaha ka mid yihiin oo runtii dad badan ay aad u soo dhaweeyeen waayo dhaqaaluhu dumarku runtii waxay ka mid yihiin guud ahaan dhaqaalaha regionka oo dhan guri walba gabadh baa joogta xaas baa jooga walaashaa baa joogta ina wax baranaysaa joogta marka qaarkoodna waxba leeyahay dumarku xagga lacagta ilaalinteeda iyagaaba kuba fiicanba meelaha qaar marka Dahabshiil oo kale aad buu xiiseynayaa inuu maalgelin badan siiyo dumarka ama ha noqoto microfinance ama microdahab institution-ka ku sheegay aanu sameeyna ha noqoto ama Dahabshiil bank ha noqoto ama dahab iyo Somtel iyaguna mobile payment-ka qaybo badan dumarka la shaqeeyaan ha noqdo shaqaale badan oo runtii iyaguna ka shaqeeya Dahabshiil group oo dumarayna way jiraan waayo dumarkana waxaan u aragnaa in haddii dhaqaalaha ay koraan inay cid walba gaadhayso gabadhu carruur badan bay dhashay carruurteedii baa lacagta la wadaagaysa
aqoontii baa sii fidaysa oo dadkii baa shaqaysanaya lacagtii bay wadaagayaan ama xaggii technology-ga marka mar walba anagu waan ku dadaalnaa in dumarka aanu dhiiri gelino haddaanu nahay dahabshiil group aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid dahabshiil oo igala soo qayb galay waraysigan oo jooga xarunta shirarka ee London.